madaxweyne Trump waxa uu isku dayayaa inuu toddobaadyada uga haray muddaxileedkiisa uu dunida wax ka bedelo. Ma jiro madaxweyne Mareykan oo guluf dagaal iyo mid diblomaasiyadeed kiciya maalmihiisii ugu dambeeyay ee muddaxileedkiisa. laga soo bilaabo madaxweyne Jimmy Carter oo ahaa madaxweynihii 39aad ee Mareykanka sanadihii 1977 ilaa 1981. laakiin waxaa la moodaa in madaxweyne Trump uu sidaa wax ka bedelayo uu rabo inuu dagaal qaado intuusan ka bixin aqalka cad. ugu horreynba madaxweyne Trump ayaa isku dayay inuu sii xajisto xafiiska ukunta ee looga arrimiyo waddanka Mareykanka isagoo diiday in laga guuleystay doorashadii dhacday ay ku loolamayeen isaga iyo Joe Biden isagoo ku andacooday inay dhacday ku suubaso balse aan caddayn loo hayn. tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo madaxweyne Trump qaaday ayaa u muuqday inuu horumarinayo dagaalka dhexqarxa Mareykanka iyo caalamka gaar ahaan bariga dhexe. xilka qaadistii wasiirkiisii gaashaandhigga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. madaxweyne Trump ayaa u jihaystay istaraatiijiyadda Mareykanka ee ka dhanka ah badweynta Hindiya isagoo sidoo kale jeebka ku wata saaxiibkiisa bariga dhexe ku matalay Israa'iil. dhowaan ayay ahayd markii ay diyaarad dagaal joog hoose ku dulmartay waddanka Lubnaan wax yar kadib markii ay Israa'iil sheegtay inay soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn oo ay leeyihiin kooxda Xisbullah ee waddanka Lubnaan. waxaa la dilay saynisyahankii reer Iiraan ee Muhsen Fakhrizadeh oo ku xildheeraa samaynta hubka waxgumaada ee nukliyeerka iyadoo isla markiiba farta lagu fiiqay Mareykanka iyo Israa'iil iyadoo si gaar ah warbaahinta Iiraan ay ku eedeysay in Israa'iil iyo Mareykanku ka dameeyeen dilka ninkaasi. maxaa lagu fasiri karaa in Mareykanku xilligan dharbaaxada intaas leeg ku dhufto Iiraan iyo xulafadeeda bariga dhexe? falalkan ugu dambeeyay ee ku kacay madaxweyne Trump ee hurinta colaadda bariga dhexe gaar ahaan Iiraan ayay khubarada ka faallooda ku sifeeyeen tallaabo uu doonayo inuu ku hor istaago in madaxweyne Trump uu ku laabto heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee uu Mareykanku ka baxay sanadka taariikhdu markii ahay 2018. xaalku ma degana ujeedooyinka guracan ee madaxweyne Donald J. Trump ayaa waxa aad u qoraya wargeysyada waaweyn ee waddanka Mareykanka sida New York Times. wargeysyada ayaa sidoo kale qoraya hanjabaadaha ka imaanaya Iiraan iyo saaxiibkeeda gobolka ee ururka Xisbullah iyagoo ku hanjabaya inay jawaab kulul ka bixin doonaan daandaansiga uu wado Mareykanka. xilka qaadistii wasiirkii gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu warbaahinta la hadlay Xasan Nasrullah oo hogaamiyaha ururka Xisbullah ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan weerar kasta oo uga yimaado Mareykanka. arrintan ayayna warbaahinta Mareykanku aad u qaadaa dhigtay iyadoo tilmaamtay suurtagalnimada ah in si uu weerar u qaadi doono madaxweyne Trump intuusan ka bixin aqalka cad. madaxweyne Trump ayaa iskugu yeeray la taliyayaashiisa ayaa ka codsaday inay ka tala bixiyaan in mar gacanta loola tago Tehran. la taliyayaasha madaxweyne Trump ayaa walaac ka muujiyay suurtagalnimada in dagaalku uu faraha ka baxo oo ku faafo gobolka oo dhan oo aan la mahadin doonin dagaalkaas. madaxweyne Trump ayaa ku adkeysanaya inuu gacan ula tago Tehran iyadoo raadinaya qorshe uu weerar ugu qaado Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan gaar ahaan goobta lagu magacaabo Natanz oo ka mid ah goobaha Iiraan ku bacrimiso nukliyeerkeeda. weerarada goobtan ayaa loo adeegsan karaa in sawaariikh lala dhaco ama loo adeegsado weerar elektarooniga. arrintan ayaa lagu falanqeeyay wargeyska New York Times iyadoo sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Trump weerar ku ekeyn doono Iiraan iyo mid u muuqda mid qarsoon midkoodba muddooyinka toddobaadyada ah ee uga haray muddaxileedkiisa. Mareykanka ayaa ku daabulay bariga dhexe hub aad u culculus oo ay ka mid yihiin waraakiibta waaweyn ee xambaarada diyaaradaha
konton diyaaradaha F-35 ah, 18 gantaalada MQ-9 ah iyo 1,000 miinooyinka ah. hubkan ayaa waxaa lagu qiyaasay qiimihiisa inuu ku kacayo $10 bilyan oo doolarka Mareykanka. wakaaladaha qaar ayaa soo xiganaya inuu amar toos ah ku siiyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka inay weerar kasta ku qaadaan Iiraan. waxaa sidoo kale weerarkan si weyn u hadalhaya wakaaladaha wararka Israa'iil, iyagoo sheegay in cunaqabatayn adag la duldhigayo Iiraan si uusan Joe Biden ugu laaban heshiiskii Iiraan iyo reer galbeedka ee 2015 la galay. Israa'iil ayaa si aad ugu taamaysa in howlgal militari wax lagaga qabto Iiraan inta aan la gaarin 20 January sanadka 2021, maalintaas oo xukunka la wareegi doono Joe Biden. qorshaha dagaal ee Israa'iil doonayso ayaa in weerar toos ah lagu ekeyn balse loo adeegsado weeraro qalsoodi ah oo kaas oo lagu beegsanayo shakhsiyaad iyo goobo muhiim u ah Iiraan. qorshaha kale ee Israa'iil ayaa inay beegsato xarumaha nukliyeerka ee Iiraan, taas oo ay lagama huraan tahay in Iiraan ku jawaabto gantaallo ay ku weerarto Israa'iil, halkaas oo Mareykanku ka soo gali karo dagaalka isagoo beegsan doona xarumaha nukliyeerka ee Iiraan, isla markaana la bixiyo ciidamadiisa. xalinta xaaladahaas cakiran ayaa ku adgaan doonta madaxweyne Joe Biden, iyadoo gabi ahaanba meesha ka bixi doona wax loogu yeero heshiis nukliyeer oo lala galo Iiraan. xaalka Iiraan. Iiraan ayaa wajahaysa khatar amni iyadoo siyaabo kala duwan loo dilay qaar ka mid ah halyeeyadeedii sida Qaasim Suleymaani iyo saynisyahankii nukliyeerka ee Muhsin Fakhrizad iyo saraakiil kale oo waaweyn oo Iiraan boosas muhiim ugu jiray. waxaa sidoo kale tuban meel u dhow xeebaheeda maraakiib dagaal oo uu leeyahay Mareykanku. Iiraan ayaa ku hanjabaysa inay jawaabo aan la mahadin ka bixin doonto haddii Mareykanku isku dayo inuu weerar warshadeed nukliyeerka ku qaado. haddana Iiraan waxay filaysaa inuu mar uun la soo weerari karo. madaxweyne Trump ayaa ka mid ah siyaasiyiinta dhaleelsanaa dagaalkii uu Mareykanku ku qaaday dalalka dibadda sida dagaalkii Ciraaq oo uu ku tilmaamay khaladaadkii ugu waaweynaa ee uu dunida Mareykanku galo, isagoo ciidamo fara badan ka soo daadgureeyay dalal dhowr oo dibadda. dastuurka waddanka Mareykanka ayaa qeexaya in madaxweyne muddaxileedkiisu dhammaaday uusan dagaal qaadi karin, balse uu difaaci karo haddii khatar amni ay timaado. ilaa iyo 13 wakaaladood oo sirdoonka Mareykanka ayaa ku sifeeyay Iiraan inay khatar amniga Mareykanka ku tahay. hawshan ayaa la sheegay inuusan waxba ka qaban karin madaxweyne Donald J. Trump muddada u hadhay ee kooban darteed, iyadoo sidoo kale ay isku hayaan saraakiisha ciidamada kadib casilaadii wasiirkiisii gaashaandhigga Mark Esper. go'aanka uu Trump rabo inuu weerar uga qaado Iiraan dhammaadka muddaxileedkiisa ayaa ah mid uu ku tijaabinayo nasiibkiisa, kaas oo ku baxsan doono doorashada sanadda 2024 haddii uu isa soo sharaxo. xasuusta aqalka cad. sooyaalka taariikheed ee Mareykanka ayaa la sheegay inay jirtay isku dayo noocan oo kale ah, kaas oo madax Mareykan ay isku dayeen inay weeraraan Iiraan dhammaadka muddaxileedkooda. isku dayadaasi oo laga xusi karo madaxweyne Bushkii labaad sanadkii 2008. weerarkaas oo markii dambe loo adeegsaday hab elektarooniga ayaa lagu beegsaday saldhigga Natanz oo ah saldhig lagu baxrumiyo hubka nukliyeerka wax gumaadee waddankaasi Iiraan. weerarkaas ayaa lagu burburiyay ilaa 1,000 goobood oo lagu baxrumiyo nukliyeerka. laba qorshe uun ayaa laga fili karaa mid uun inuu doorto Mareykanka xilligan, kuwaas oo inuu weerar toos ah qaado ama mid elektarooniga ah uu qaado, ama inuu labadaba isugu daro, waa mid elektarooniga iyo weerar toos ah Iiraan. ma kula tahay in madaxweyne Trump uu weerarayo Iiraan isagoo muddaxileedkiisu dhammaad yahay? haddayse dhacdo adiga dhinaceed ayaa la jirtaa.